marka si aad u soo darto qaybta markaasi theme-ka waxaa dhehaysaa keliya add theme ayaa dhehaysaa. marka su'aal kale news warar haddaad samaynaysid website warar ah waxaa dhehaysaa news ayaa dhehaysaa ama warar news unbaa qoraysaa bis. so news markaa qorto waxaa kusoo baxayo themes aad u badan soo baxayo themeskaas aad dalbanaysaa markaa. so themes aad u badan soo baxayo waxaa xulinaysaa marka theme-ka doonaysid ayaa xulinaysaa. marka horta waana themes aad u badan soo baxay midka doonaysid ayaa markaa xulinaysaa. tusaale kale tan waxaa xulinaysaa waxaa dhehaysaa keliya install kadib markii uu dejiyo waxaad ku dhufanaysaa qaybta ku qoranta activate. marka website-ka wuxuu noqon doonaa theme-ka hadda aad dalbato kale qaabkaas kale ayuu noqon doonaa. marka waxaa dhihi doonaa refresh. marka ujeedaa website-ka hadda wuxuu noqday design-ka hadda aan xulino kale ayuu noqday. marka qaabkaas fudud ayaa markaa waxaa loo siiyaa theme ama markaa muuqaalka website-ka kale loo soo geliyaa. marka waxaa jira waxa loo yaqaano demo data qaybtana markaa ka bilaabaysaa mar walba theme dasato qaybtan install plugins ay ku qoranta ka bilaaw. qaybtaas waa qaybta ugu muhiimsan. waxaa markaasi uu kuu sheegi doonaa waxyaalaha aad u baahan tahay pluginska u baahan tahay si markaa theme-kan uu si fiican kugu shaqeeyo. intaanu deji dhahay intaanu kala dejinaynaa qaybtaan ku dhufanaya kadib waxaa dhihi doonaa qaybta install kadib apply ayaa dhihi doonaa. waxaan sameynaynaa installed plugins kusoo laabanaynaa. so mar walba plugin aad disato waa in activate dhahda kulli aad dooran doonaa. waxaa dhihi doonaa activate kadib apply ayaa dhihi doonaa. so marka waxyaalahan lagu soo daray sida kan iyo soo kale kan oo kale lagu soo daray kan waa theme-ka magaciisa waa isla theme-kii. marka wuxuu ku leeyahay qaybtan start with demo sites. demo sites waxaa la website-ka markaasi ama theme-ka loo siiyey wuxuu leeyahay design dhammaystiran ayuu leeyahay. haddii meeshaan aan fiirinan design dhammaystiran meeshaan kuma hayno laakiin theme-ka wuxuu lahaa design dhammaystiran. marka demo data markii lagu dhahayo waa design-kii oo dhammaystiran sawiradii iyo wax walba la socda ayaa loo yaqaana marka. so waxaan dhehnaa markaa get started markaa dhahno wuxuu markaa sameyn doonaa inuu markaa demo data ama sites start sites waxa la inuuna siiyo design markaasi aan ka xulo karno midkaa doonayno. marka qaarkood free waa qaarkoodna lacag waaye. so hadkan uu waraya free ku qoran almost inta kalena waxa weeyaan kuwa lacag weeyaan. kan kale hadana free ku qoran waxa weeyaan mid oo blog kale maahan laakiin website kale waaye. so website kale ayaad ku isticmaali karaysaa. soo kale blogna ku isticmaali kartaa ama news kanoo kalena adsina waa free. sababta la sii kanoo kale xitaa wax oo news camal maaha laakiin adsina waa free. kala sii qaarkood free ay qaarkood marka lacag ay soo jiro. kan uu waraya markaan anfacayo oo markaas cashirkan ku saabsan waxaan ku dhufanayna select kadib waxaan leenahay import. waxaan arkaynaa in loo keenay design dhammaystiran oo markaa postiyo badan ay ku qorayiin. design gaar wax badan ka bedelaysaa. waxyaalaha ugu horeeya samayn jirta waxaa kamid ah qaybtan customize wax kale maahan waa in theme-ka sawiradiisa iyo wax walbo theme-kaas ku jiro anything markaas in la bedbedela ayaa loo yaqaano customization. meesha marka laga hadlayo qaybta postiyadana waxaa ka bedelaysaa marka qaybta markaasi postiyada ayaa ka bedelaysaa. so haddii aad doonayso postiyada inaad isbedelaydo qaybtaas ayaa ka maareynaysaa oo waxaa samayn kartaa dhammaan postiyadaan kala isbedeli jirtaa kuwaarid ay markaas soo jeesan karaysaa. so haddeetan waxaa meeshan ka bedeli karnaa kalarada iyo wax walbo. waxaa ugu horeysa site identity. su'aal kale waxaa ka bedelaysaa logada arid ay soo xuli kartaa qaybtan ayaa markaa ka soo gelinaysaa. su'aal kale waxaa dhehaysaa select kadib markaa logada soo xulato qaybtan select ayaa ku dhufanaysaa kadib skip cropping ka leedahay haddii logada arid in si fiican lagu soo muujiyo. marka hadda logada waa tana. so qaybtan kale waxaa weeyaan waa title-ka markaasi website-ka. qaybtan kale waxaa weeyaan title-ka website-ka weeyaan. so haddii aad doonaysid display site title oo meeshaan laga soo muujinayo uma baahni aad dhigi kartaa. sidoo kale mar walba muhiim waa inaad qaybtan aad bedesho. site title size kale waa cabirkii almost cabirkii marabno cross already waa akhrina. so marka laga hadlo qaybahan kale waxaa imaanaysaa kalarka kale. kalarka waxaa weeyaan waa kalarka website-ka uu isticmaalayo. so laba kalar adii aad doonaysa ka dhigi kartaa. su'aalo kale waxaa dhihi karnaa waxaa noogu dhigtaa marka kalarkan. so marka kalarada waa laga bedbedelay kalarada hadda asina la siiyey. so kanoo kale muhiim waaye kalar fiican ka dhigana waa blue kanoo kale siinayna. okay qaybtaas marka qaybta kalarada waa waxaa jira header builder aa jiro. header builder kan show top headerka uu sareeyo muujinaya ayuu ku leeyahay. waa qaybta uu sareyso qaybtaas markaasi December 2025 ay ku qoran kale yani hadda waa soo muujin karaa waana ka bixi karaa. qaybahan kale waxaa weeyaan background iyo meesha yaalo kale yani background ismu ku aali doona waxaa dhigi doonaa sawirkaas qari
واسوي مذوجة أو لو جدا سو ممكنه سو قرية ليناي كانوا ولا دائما مليسيد هل كاسبلا كله فكرتها حريكتها ريموف مش كسر وحياة بدنا يا مركز كسر كذا مركز حلوة قارن كستميشن أي حلوة قارن مركز عشان كنا كسب سنة قاب مركز ثيم كلا يزود سو كلا ثيم كقاب كلا استعماله السوق قاب مركز ثيم كلا رضا وحياة أد مركز وبدل كرتو مركز حرجينا إن شاء الله نسيف أنو فانتين عشان كنا ما أنت هل كسر كسبنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.